إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء ولي waxaan ku jirnaa muxaadarooyinkan u hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii u hadlaynay xawla suxuur wal iftaar afurka iyo suxuurta masaa'il ku saabsan suxuurtan hore baan u soo aragnay haddana waxaan gelaynaa goorma ayuu afurayaa qofka sooman iyo afurka in la dedejiyo xukunkeeda muxuu yahay culimadu waxayna isku khilaafsaneen qofka sooman inuu afurayo mar hadduu xaqiiqsado qoraxdii dhacday haday qofka u cadaato qoraxda inay dhacday inuu afuraayo arintaas iyada culimadu isku khilaafsana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri thumma atimmu siyama ila al-layl waxaad kadib taam yeeshaan soonka ila habeenkii laga gaaro rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shamsu faqad afdara as-saa'imu habeenkii hadduu dhinacan ka soo qaabilo oo xagga qoraxda ka soo bixaysa ay mugdi soo noqoto wa adbara an-naharu minha huna maalintina intuu usii jeesato oo hadda meesha qoraxdu dhicisana ay yaani maragtay mugdi oo sii noqday oo wa gharabat ash-shamsu cadceedan ay dhacdo فقد أفضل الصائم قفك الصومان وأفري حديثنا هو صحيح البخاري مسلم يسو ساري marka waxaan meeshan ka garanaynaa culimadu inay isku raacsan yihiin qofka sooman hadii uu xaqiiqsan qorax u dhacdayba inuu afuro in maxaan ku raada ay u banaan tahay waana sida aayada quraanka ay tusinayso xadiiska nabiga uu tusiyay calayhi salaatu wasalaam waxay culimadu isku khilaafeen afurka uu la dedejiyo xukunkeeda muxuu yahay ilaa dhowr qolba mas'alada ku jiro qolka koowaad wuxuu leeyahay afurka in la dedejiyo waa waajib hadii qofku dib u dhiga oo xilligii la afur lahaa dib ugu mara oo dib ugu dhacaanana uu dambaaba ayuu leeyahay qolka koowaad waana madhab bacd al-dhahiriya dhahiri qaar kamid madhabkooda saas weeyaan waxayna dilaysanay leeyihiin ummadda kama ayna zuulin khayr hadii ay mar afurka dedejinayaan maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri la zaala an-naasu bi khayrin ma ajjalu al-fidra dadku khayr kama zuulayaan intay afur dedejinayaan marka qolka koowaad wuxuu leeyahay qofka afurka inuu dedejiyay waa waajib haduu dib u dhigana uu ku dabaabaya qolka labaadna wuxuu leeyahay waa mustaxab oo waa sunna oo kaliya ee waajib ma aha afurka in la dedejiyo waxayna leeyihiin istixbaabka waxa uu daliil bay yiraahdeen xadiiskii ay qoladii hore daliilsaneen ee ahaa la zaala an-naasu bi khayrin ma ajjalu al-fidra iyo athar oo warina Amr ibn Maymun oo asina ka hadlayay suxuurta in dib loo dhiga afurkana in la dedejiyo ay fiican tahay labada qol ayaa mas'aladaas ku jiray qolku uu raajaxsan wuxuu noqonayaa in la yiraahdo afurka oo la dedejiyo waa sunna ee waajib ma ah waa sida ay qabaan jumhuurul ulama waxaanu harnaa inaan ka hadalno mas'alo kale oo ku saabsan ad-du'a 'inda al-ifdari markii la afurayo in la duceyso afarta madhabood kutubtooda waxa laga helaa in ay sunnata in la duceyso markii la afurayo waxaana ku soo aroray xadiiska koowaad arinta ku soo aroray wuxuu yahay xadiisu Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma qala wuxuu yiri sami'tu Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna lis-saa'imi 'inda fidrihi da'watun la turad qofka sooman markuu afuraya wuxuu leeyahay duco alla bari ah oo aan la soo celinaynin adiga oo sooman hadii alla aad barido ducadaada waa la aqbalayaa markii aad afurayso weeyaan xadiiskaasi sanadkiisa dacfi baa ku jiro xadiis kale wuxuu ahaa nabiga inuu ahaa markuu afuro inuu yiraahdo Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu ilaahu darada baan u soomay rizqigaada baan ku afuray xadiiskaasi naftirkiisa dacfi baa lagu sheegay waxa kale jira xadiis kale Abdullah ibn Abbas oo warinaya ta'ala anhuma uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu afuro wuxuu dhihi jiray Allahumma laka sumna wa ala rizqika afdarna Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim xadiiskaasina dacfi baa lagu sheegay waxa kale jira xadiiskii Anas radiyallahu ta'ala anhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu afuro wuxuu ahaan jiray buu yiri inuu yiraahdo bismillaah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu xadiis aan soo shan dhamaantood markii rasuulka sanadkooda waa daciif hasahatee in qofka alla oo bariyo markuu afuriyay oo ducadaas la aqbalaya arintaas arin la rajaynaa weeyaan waxa wanaagsan marka afuriisa alla inaad barido subhanahu wa ta'ala maxaa la sunneeyaa qofka inuu ku afuro maxaa sunna ah ee qofka uu ku afurhaya xadiiskii Anas radiyallahu ta'ala anhu ma wuxuu tusinayay inuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku afuri jiray ala rudabatin timirta
يعني maaragtay wili ay maaragtay aan si fiican u bislaan oo timir caadiga aan gaarin rudab kale yiraahdo ayuu ku afuri jiray tuusan dukanan ka hor haduu rudab helina wuxuu ku afuri jiray timirtan caadiga haduu san timir haysanina biyaha ayuu cabi jiray oo kobo jiray rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam hadiiska sanadkiisa xasan weeyaan waxaan leeyahay ala sharda muslim buu ku sugnaaday sidoo kale Anas radiyallahu anhu wuxuu yiri rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid jecel in ku afuro 3 timir ama shay ayna dab ku dhicin 3 timir ama shay uusan dab taabanin inuu ku afuro ay rasuulka jeclaa kaleeyhi salaatu wasalaam Jaabir radiyallahu anhu wuxuu yiri rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam rudab ku afuri jiray haduu rudab waayana timir buu ku afuri jiray wuxuuna yeeli jiray tira witr oo 3 ama 5 oo waxa la rabaa timirta marka lagu afurayo 3 ama 5 in yaama aragtay laga dhigo waa tira witr laga dhigo waa 3 5 7 9 11 tiraas noocaas in loo wada ayaa fiican markii timirta lagu afurayo sidoo kalena marka lagu suxuurina saala yeel ayaa fiican misaayid qaar hadda marka ay timirta lagu afurayo ay diyaarinayaan 3 bay ku dhigaan arintaas waa arin fiican oo raba in yaani maaragtay lagu dadaalo marka 3 timir waa ina kalaga cunta ama hal xabo wad cuni kartaa oo hal xabo waa ku ekeysan kartaa witr waa laga rabaa in la timaado rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man wajada tamran falyufdir alayhi qofkii timir hela timirta ku afura wa man lam yajid falyufdir ala al-ma'i fi dhahur qofkan timir heli karina biyaha ku afura maxay yeelay biyaha ya u daahir buu nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hadiiskaasi waa daciif laakiin awjuub kale oo xoojinaysa waa jirto oo tusinayso timirta in lagu afuro in wax wanaagsan ay tahay mas'ala kale oo ka hadlayna walaal waxa weeyaan tafdiiru saa'imiin dadka sooman oo la afuriyo waxa laga rabaa qofka muslim inuu isku dayo dad sooman inuu afuriyo marka lagu leeyahay dad sooman waa inaad afurisaa macnaheedu ma inaad dhaljiso timir hada heli kartaa si biyo hada heli kartaa si wax yar oo xitaa oo ku sii joogo si ajirka waad helaysaa oo qofkii soona afurisay ajirkiisa baad yeelanaysaa rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri من فضل الصائم كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء قفك أفري قف صوما أجر كيسو كل الله قرأ هسا هاته قفك صونا أجر كيسو حبك النسقى من معين قف كان صوما أجر كيسو ليه أليق أفري قف كان صوما يعني مرت أجر كيسو بالله معنى أجر بالله أجر كيسو كلا إمام النووي رحمة الله عليه مركو حديث كان شرحه وحجري يستحب أن يدعو الصائم ويفضله في وقت الفجر وحلص النابر إنه يرقف صوما أو أفري حلق أفرك أرنتاس لنسكم خلاف سنبور إنه صنية هاي حديث كبانا السنية شيخ متولي وحوري هدوسا أود نقفك إنه عشسيه وإنه كأفريا تمر أما بيو سيو أما عانا وحو هلكر وإنه سيا شيخ ما وردن وحوري وحلص النيا قفك الصوما إنه قفك الصوما أفريه ومستحب يري wax kasta oo ay suuragal u tahay maxaan ku dhahay qofka uu ku afurinayna inuu siiba la doonayaa marka waxa wanaagsan qofka inaad afuriso hada heli kartid marka qofka inaad dharjisana waa shay aad u wanaagsan marka waxaan leeyahay walaalayaal dadka saa'imiinta oo soomana dad waxa jira aan heli karin in ay yaani maaragtay iska bixiyaan afurki ama suxuur iyo afur iyo isla heli karin wixii marka uu heli karto ina siiso baa la doonayaa gaar ahaan afurka ugu wanaagsan ina siiso baa la doonayaa waad ku gacan siiso dadka sooman oo tabarta hayso haday ama dadka ma laga yaabo inaysan dad meesha u joogin inaad marka waxay sii karto ina siiso baa laga doonayaa arintaas iyada ajir badan iyo khayr fara badan baa ku jiro oo waxa weeyaan qofka soomana ajirkiisu uu leeyahay adina ajirkiisu kala baa lagu siinayaa mid kalena waa ku dheeri waxaan gudbaynaa qayb kale oo ah maxaa soonka fasahaadiyay maxaana soonka fasahaadinaynin maxaana kafaara keeno qaybtan waxaan u hadli doonaa saddex walxaad waxyaabaha soonka fasahaadiyay oo soonka ku ciyaarayo oo waxa hadii la liimaa soonka uu ku burayo iyo waxyaaba soonka aan burinaynin laga yaabo dadka qaaran inay soonka in burinaan u arkaan iyo maxaa keena kafaarada qaybta hore oo uga hadlayna waxa weeyaan wax kasta oo gudaha galo oo meel duleeshana ka soo galo waa afka iyo sanka maxay noqonaysaa arintooda macnaheedu waxa weeyaan shayga gudaha galo oo dariiq manfid ama meel duleesha ka soo gasho asaasi ah sida afka iyo sanka oo kala jirkana u gudbo calooshu tagaay shayga asaga asoonka muburina masmuburinayo ko waxa weeyaan al-aklu wa shurbu waxa la cuno waxa la cabo culimadu waxay ku ijmaacsan yihiin waxa la cuno oo la cabo in ay kamid waxyaabaha soonka fasahaadinaya ko waxa weeyaan waxyaabaha soonka fasahaadinaya
oo lambarka kuwaad noqonayaa qofka inuu waxna cuno waxna iska cabo arintaas culimadu ku ijmaacsan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل عنا أو عابي إلى إذا عدانيس دون تعد دون تمدو إلى واقع وكبريه ويان كدي من الصوم كتاميال أو لما يستر إلى هبينك لجار هيو مركع عندي عبيدي أي واحد كأكت هاي إلى واقع وكبريه هيو كدي من إن الله الصوم إلى الدنيا إلى قرحة كده عيسو حبي دعى القف إنه لقى شيء ير سذا يعني مرتي حبدا سنت أو كلا ama xasaas u yar oo kala haduu liqay soonkiisa muxuu noqonayaa hadii uu qofka ay dhacday inuu liqo shay yar sida xabada sisinta oo kala ama wixii lamid ah horta soonkiisa waa buriya maxaa yeelay waxaas waxa lagu tiri karaa waxyaabaha la quuto ama waxyaabaha la cabo maadaama lagu tiri karaa waxyaaba la cuno ama la cabo waxa la cuno ama la cabana waxooda yar iyo waxooda badan isku mid weeyaan oo in laga dhowrsado baa la doonayaa arintaasina waxa weeyaan khilaafka ma jiro culimada dhexdooda in ay soonku burinayso wax yar oo yaani maratay sisinta oo kala ama maxaan ku raada masago oo kala ama digir oo kala in la liqdo maalin ramadaan in soonkaada fasahaada ama burahayo haday dhacdo qofkii soonnaa inuu liqo shay aan raashin lagu tirinin ama cabitaan lagu tirinin sida carrada oo kala ama nuuriyada oo kala xitaa waxa dhici karta lacagtan sunuudo jajabka haduu liqo xitaa maxaa dhacayo waxyaabo aan raashin lagu tirin asal ahaan haduu qofka liqaayo soonkiisa muxuu noqonayaa arintaas sida culimadu isku khilaafeen ilaa saddex qowl ay arintaas culimada ka qabaan qolka koowaad wuxuu leeyahay waxyaabaha aan raashin lagu tirineynin qofka sooman haduu liqaayo soonkiisa ku buri maayo sababtoo waxay leeyihiin waxaan raashin maahan cabitaan maahan quraanka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lagu xarimay bay yiraahdeen wax la cuno ama la cabo wixii ay ka soo harana waxa asal inay iska banaan tahay hadalkaas waxa qaba culimada qaar kamid ah sida al-Hasan ibn Salih iyo ibn Hazm oo kala hadalkiisa ka muuqatay culimo kalaba qolka labaad wuxuu leeyahay qofka sooman haduu liqo waxyaaba yaani maratay aan lagu tirineynin in raashin yihiin soonkiisa waa buriyo fasahaadaya culimo badan kana saasay qabaan waxa jirtay bay leeyihiin suuratul fajr waxa la yiraahdo afurka suuradeeda maash ka muuqato oo shay ayaa afkiisa galay oo gudihiisa u gudbay wax ka soo marka gudaha u galo waxaas yeemal raashin lagu tirinayna soonka waa burinaya ayuu leeyahay qolka labaad arintaas iyada qol saddexaad mas'ala ku jira wuxuu leeyahay soonka faradka baa meesha ku fasahaadayee midka sunnada kuma fasahaday qolkan saddexaad wuxuu leeyahay soonka laba loo kala saarayo qofkan sooman ee wax raashin lagu tirinayna laqay haduu soomiyaha soon waajib ah soonkiisu waa buraya haduu soon sunna u yahayna soonkiisu ma burahayo maalikida qaar kamid ayaa warkaasi qaba waxay dil ka dhiganayaan dabcan in soonku sunnada arrimihiisa la iska fududeeyay markii xagga faradka loo fiiriyo mas'alada waxa ugu raajaxsan waxa weeyaan qowl jumhuurul ulama oo ah hadii qofka sooman oo liqa wax aan raashin lagu tirin sida dhagaxaan iyo qaruurax iyo carra iyo wax lamid ah soonkiisu waa buriya soonkaasi farad ha noqdo ama sunna ha noqdo isku mid weeyaan waxa mas'ala kale oo soo bixi karto la isweydiin karaa hadii qofkii oo liqo raashinkii xalay oo cunay ee ilkaha ka dhax galay wax kamid ah ku baaqi ah dul liqa muxuu noqonaa soonkiisa waxa dhici karta qofka sooman inuu liqo raashin hara ah ee ilkiisa ku dhax sugan dadka waxa wanaagsan markay raashin cunaa in rumaysaan oo ay iska nadiifiyaan ilkaha haday dhacdo qofkii inuu suxurto ee markuu suxurto kadib waaga uu bariyo waa markuu u baray ka bacdi raashinka uu cuno ilkaha haystay wax kamid ah dul liqaayo soonkiisa muxuu noqonayaa arinta culimadu waxay leeyihiin laba xaalad oo kala saaraya xaaladda koowaad waxa weeyaan waxa uu liqay inay yihiin wax yaroo aan yaani maarta canduuf raaca inay yihiin oo canduufada aan laga sooci karin oo inuu suurgalan qofka inuu tufo culimada qaar waxa la soo naqlaa ijmaac oo ay ku ijmaacsan yihiin qofka liqay wax yar oo canduufada hor raacaya soonkiisa inuu san bureynin maadaama uu qasdin inuu liqo waxa asaga ah sababta waxa leeyahay suurgal ma waxyaabo noocaas laga dhowrsado baa leeyahay oo wax yar oo ilkaada ku harharo oo raashin la weyn maahay qof hadoo wax cuno xaaladda koowaad marka waxa weeyaan wax yar oo canduufada raaca haday yihiin oo canduufada aan laga sooci karin gooni loo tufi karin haduu qofka la qaayo soonkiisa buri maayo xaaladda labaad waxa weeyaan haday suuragal tahay wixii inuu macnaa uu iska sooco canduufada laga saaro ama la tufo si gooni ahaan qofkana uu liqa si ula kaca arintaas si culimadu isku khilaafeen insha Allah ta'ala muharramada xigta waxaan ku dhameystiri doonaa qofka haduu liqo raashin oo ilkiisa dhexdooda saaran halkiisa muxuu noqonayaa soonkiisa ma buraya
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.